xafiiska shabakada daldoon ee magaalada Buuhoodle waxaa la soo gaarsiiyay qayb ka mid ah muuqaal muujinaya jabhadda xoreynta deegaanada Khaatumo soo bandhigtay sawirro iyo muuqaal kala duwan oo lagu qabtay dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Xudun iyo Taleex. hogaamiyaha jabhadda xoreynta Faysal Fayaaruq ayaa mid u gubay kaararka oo noqonaysa markii labaad ee Somaliland ka qabto agab iyo kaarar. hogaamiyaha oo la hadlay dadka SSC ayaa yiri bismillaah halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan mujtamaca reer Khaatumo Misool iyo Sanaag iyo Cayn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah hogaamiyaha jabhadda xoreynta Khaatumo waxaan shir saxaafadeedkan u qabtay inaanu ku soo bandhigno cadawga dagaalkii ay kula jirtay jabhaddani uguna shaqaynaysay dadkeeda qaybaha dhexda ka jabinaysa oo ka mida waxyaabaha ay dadkeega ku khaldayaan. sida aad arkaysaan waxaanu soo qabannay dagaallo iyo halgan dheer oo ay galeen jabhaddu ayaamaha kan wiiganba socday intii ay deegaamada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay waxaan diiwaangelinta ay dadkeega ku khaldayaan ay soo geliyeen. intaaba jabhaddu way dagaalamaysay waxayna kala dagaalamaysay waxa dadkeega lagu khaldayo inaysan shaqayn. waxay soo qabteen oo alle ku galladay sanaaduuq badan oo ah kuwa aad arkaysaan. gobolkan ay ula baxeen Xaysimo magaalada degmada Taleex gobolka Sool ka tirsan jirtay yaraay waxa ula baxeen iyo gobolka Sool dhammaan wixii ay deegaamada geeyeen gacanta lagu soo dhigay waana taayad gumniinkooda arkaysaan. waxyeelooyin ciidan oo dhimasho iyo gaadiid gubteedana waa u geysan waanu wadaynaayo ilaahay waa u nooleeyay waxay alaxda kaga jabaan. shir saxaafadeedka waa qodobka koobaad ee taa inaanu ku soo bandhigno mid bay ahayd indhihiina aadna ku aragtaa. waxaan halkan ka dirayaa baaq aan u dirayo mujtamaca Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka reer Khaatumo. dadka reer Khaatumo waxaan u sheegayaa marka hore ciddii lagu dhibaateeyey oo ay cadawgu ku dhibaateeyeen arrintan khasabka ah oo awood sheegadka ah oo kaadharkan beenta ah ay leeyihiin qaata oo ay diideen dagaalka ay shacabku kaga hor yimaadeen oo meelo badan ka dhacay. marka hore ciddii ay ku dhibaateeyeen oo ama dhimasho ama dhaawac ay ka soo gaadhay allah idin booga dhayaan leeyahay kuwa dhaawaca kuwa dhintayna allah u naxariisto. dhimasho diyaar baynu u nahay maxaa jira cadow baayna ku soo duulay. reer Khaatumo ha ogaadeen arrintani inaynan ahayn reer yaroo isaaq la yidhaahdo aynu ishayno ma aha. waxaynu ishaynaa ingiriiskii aynu la dagaalami jirnay baynu ishaynaa. waxa mushkiladan ka dambeeyaana waa isagii dagaalkanina kii sayidkii iyo daraawiish weeye ogaada. haddaan idiin caddeeyo maxay tahay waxa Somaliland la yidhaahdaa. Somaliland Soomaaliya waa midi xagee magacaasi ka yimi magacaasi gumaystihii buu ka yimi kuwana kuwa la isticmaalay oo gumaystihii shaad kale un baa loo geliyay. sidaa darteed diintaad u dagaalamaysaan dalka iyo midnimada Soomaaliyeed baa u dagaalamaysaan u dulqaata dhimashada iyo dagaalka ay idinku hayaan cadow waana idinka mahadcelinayna. maxay ahayd dadkii Taleex Xalim Laasacurdan dhubuq Xudun Awrbogays intii ka dagaalantay oo shacabka ahayd aad baan uga mahadcelinaynaa iyo Laascanood. qodobka labaadna ka weey qodobka saddexaad waxaan u sheegayaa nimankan dabaqoodhiga ah oo la iibsaday laakiin la oran jiray dadkan ay ku atirsadaan. waxaan u sheegayaa oo halkaan uga caddaynayaa maanta cadowgii baanu la dagaalami jirnay inaan awal waa idinka warwareegi jirnay inaanan idinka warwareegayna sidaanu cadowga ula dagaalami jirnay aanu la dagaalamayno. idinka iyo cid kasta oo u adeegaysa cadowga abtirsiye idinku raacaan kaga tagi maynaa idinna taa ku abshira. qodobka afraad
waxaan u baaqayaa oo halkan baaq uga dirayaa dowladda federaalka waxaan leeyahay war dadkani waxa ay ku dhimanayaan waa midnimadii Soomaaliyeed inkastoo madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo dowladdan cusub ay kalsoonida ummadda haystaan wixii ay qabteen aan ugu bogaadeenno waxaanu leenahay hala mid noqonina kuwii dadkan iyagoo calankooda buluuga lagu dilayo cadow ku dilayo kuwii u taaniyadeyn jiray cadowga ku dilaya kuwii hala mid noqonina dadka xaqiisa siiya